for political science and knowledge casharkeennii baan sii gudagalaynaa insha allah oo hore noogu socday casharkan casharkii ka horeeyay waxaanu kusoo dhignay casharkii ahaa qaabka waxa weeyaan loo diiwaangeliyo marka waxa weeyaan macaamilka raba in wax laga iibiyo sidaan ogeyn waxaanu tagaynay customer markaanu tagno waxaanu tagaynay waxa weeyaan meeshii halkan ahayd oo intersales and receipt marka wax ka gadayso qofka halkaas waxa way bucketkaas ku soo baxaya walidalika cashar hore aan u soo dhignay oo aan soo sharaxnay oo practical badan aan ku soo bixinay buu ahaa marka waxa la rabaa ardayda inay ka faa'iideystaan oo waxa weeyaan dhammaan min alif ilaa ya casharka dhan waa soo sharaxnay waa soo sharaxnay bal haddaan dib ugu celiyo halkan waxa tagaysaa oo waxa way customer halkan dhan waxa ku qoraysaa for example oo kale dadka Soomaalida inta badan waxa weeyaan qofka hadduu wax ka iibsado magac وهذا ويديس حتى وحكوا لي محمد مقعي كاجلي ولذلك لكن كوس وقرا قفك مقعيس for example أو كله محمد for example أو كله محمد عبد العزيز أحمد قفك سا وحويا وحنا كقطي أيتم أهانا وحو إنا كقطي وعيري ما أقاني محمد عبد العزيز أحمد is not customer job اسمه أقاني بيجري ولذلك وحلو marka halka tagno waxa leenahay item ahaan maxaynu ka iibinaa itemka waxa weeye laga iibin lahaa waxa weeyaan baa loo baahan yahay xogaa casharku sib u daadaya oo baalka balaanu fiirino waxa weeyaan marka aynu rabno inaan wax ka iibino halka hoos oo khaanada abaanu tagaynaa khaalada marka aynu tagno waxa noogu jira bariis bur iyo sonkor marka waxaanu waxa way item quantity-na waxaanu kaga iibinaynaa ugu yaraan 5 xabo ah taas isku soo dhufanaya marka 5 xabo la geeyo $135 bay noqotay haddaan rabno inaan mid kala diiwaan gelinana halkan aan tagaynaa waxaanu ku qoraynaa burka walidalika sidaas oo si lamid ah waxa leenahay wuxuu qaatay quantity 5 xabo kadib isaga waxa way $120 sidoo kale haddaan rabno inaan waxa way mid saddexaad aynu iibino waxaanu tagaynaa bariis oo waxa weeye oo min xabo ka qaatay tabadeedna waxa weeye asaga isku dhufanaya waxa lagu leeyahay $405 buu ninkani ka qaatay oo lacagteeda uu ku bixiyay dabadeedna waxa leedahay safe and close saas waxa ku diiwaan gelisay ka iibsaday oo macaamiisha ahaa casharka horaan u soo dhiganay intaas waxa iga xasuusin in dib loo soo xasuusiyo horena waatan ogeyno saddex qayb waa saameynaysaa number 1 waxay saameynaysaa account receivable-ki waa uu badanayaa oo waxa weeye lacag baa ina soo sidoo kale waxa weeyaan inventory-giina waa yaraanaya oo badeecada waxdo lacag baa ina soo gashay kan u dambeeyna waxa weeye net income baa meesha imaanaya oo waxa weeye dakhli baa ina soo galaya ama waxa weeyaan sida loo yaqaan marka intaas waa muhiim marka insha Allah bal aynu tagno report balance-geena waxyaalaha isbedelay iyo sida ay waxyeen iyo qaabka loo analyze gareeyay iyo waxa aynu ku soo kordhay waxa aynu ku soo kordhin bal aynu tagno waxa weeye customer and financial bal aynu tagno balance sheet-ka marka aynu tagno bal aan fiirino haddii wax isbedeleen iyo haddii kalaba aad wata balance sheet-keeni khaanadii oo waxa weeye saving-ka 540 bay noo maraysaa account receivable-keeni waa u jeedaan 1100 buu tagay marka hore meeshu joogana waan ogeyn inventory asset-kana waa uu yaraaday 747,450 buu maraya and deposit fund-keena wax maraya 795 oo wax badan baa inoo soo xarooday lacagahan sida loo kala leeyahay qaabka nidaamkana tan hore u soo sharaxnay insha Allah maanta waxaanu galeynaa casharkan ka cusub oo ku saabsan qaabka amaahda loo bixiyo waa cashar aad iyo aad u cajiib u ah oo ku dhisan yahay nidaamka basic xisaabaadkiisa waxaanu tagnaa create invoice ama control plus a dabadeedna waxa inoo soo baxaysa khaanad aad u weyn khaanadaas baanu ku analyze gareynaynaa oo aanu gelinaynaa waxa weeyaan qofka markaynu deyn ama amaahinayno qofka marka aynu deyn iibahayno sida waxa weeyaan hore aan u soo sheegnay sidoo kale saddex account waa ay saameynaysaa sidaan jeclahay saddexda account waxa ay kala yihiin number 1 maadaama aad invoice aad deyn wax ku gaday waxa badanaya account receivable-keeni baa badanaya number 1 sidoo kale number 2 waxa yaraanaya inventory-geeni oo waxba ina ka baxay oo deyn ahaan inoo ka baxay sidoo kale net income waa imaanaya oo faa'iido waa imaanayso waxaanu faa'iideynaa halka bal aan magac ku qorno
magaca ku qormayna laakiin qof kale aan hadda rabno kusoo xelaynaa. For example kale waxaan soo qoraynaa Xaliimo Yuusuf Cabdi. Xaliimo Yuusuf Cabdi marka hore halka waxa weeye item name-ka ku qornaa laakiin marka invoice-ka ah quantity-ga soo horeeya waa farqiga ay ku kala duwan yihiin. marka waxa weeyaan deen wax ku iibinaysa markaad cash wax ku iibinayso. bal aynu oranno 10 xabo oo quantity la iibsaday, item noocaya la iibsaday, waxa la iibsaday bariis oo kale tusaale ahaan waxa weeye isaga isku dhuftay oo waxa weeye $300 bay noqotay. walidaalika hadana mid kale aynu fiirino oo 5 ah, 5 waxa weeyaan bur oo bariis ah 5 bur waxa weeyaan isaga isku dhufanay $120. sidoo kale bal 4 waxa weeye iyadana sonkor ah aanu fiirino 4 sonkor taayna waa taas halkaas baa uga jeedaan 516 ka bal inta aan tan robotkeeni aan fiirino hadda wax isbedeleen hadii kale xoogaa isbedel baanu ka fiirinaynaa si waxa weeyaan xisaabteena iyo waxyaalaheena ay aad ula socono waana muhiim inaan markaas analyze gareyno oo ogaano sida ay xaal iyo meesha wax noo maraayo halkaas aynu ka fiirino account receivable keena 1,100 buu maraya oo wax isbedel meeshan ma jiraan hadii aynu ku darnano sida wax isku bedelna waarkeena inventory asset keena wuxuu noo maraya 7,450 and gross fund keena wuxuu noo maraya 790,000 waxa weeye sidoo kale net income kii aan fiirino waxa weeye sida ay wax isku bedelayaan waxa la rabaa proof la dhow 55,000 bay maraysaa bal aynu fiirino waxa weeyaan xaalku markaas soo noqon doono waa ujeedaan bombanay $516 waxa way deen baanu ka iibinay Stefan Close aan dhahno xisaabteena horena waa ula soconay bal aan ku analyze gareyno haday wax isbedeleen iyo hadii kalaba macallin casharkan wuxuu u baahan yahay inta badan practical badan inaad ku sameyso oo wixii aad la socoto oo analyze gareyso aad iyo aad very talent u tahay وانا معقول waxa weeye inaad fahmayso insha Allah doo alla idmo haday wax isbedeleen bal aynu fiirino